السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحبي السوداء maanta haddii alla idmo waxaan bilaabi doonaa cashirkeena maanta waxaan ka bilaabeynaa qeybo kale oo muhiima maalinkii dhaweyto waxaan ka hadlaynay echo iyo variables sida loo sameeyo kuwaasaan aad uga hadlaynay maanta waxaan in yarin tusi doonaa oo aan cashirkeena qeyb ka mida ka dhigi doonaa haddii alla idmo kelmadda echo ma jirtaa kelmad kale oo lala isticmaali karo waxaa la isticmaali karaa prince kelmadda la yidhaha kelmadda prince ayaa la isticmaali karaa prince ayaan la isticmaali karnaa waa kaas marka prince marka halka dhahno iminka aan soo shidano zamka waa taqaanaa sidaa usoo shidataan iminka waan idin baray waxaan leenahay start dhowr siyood baa loo soo shidaa haddii aad qaabkaa weydaan dhowr qaab oo kale aan idin tusay waan soo shidaynaa markaas waan soo shidaynaa markan hadda eega cilad ayaa ku timi kii sare wuxuu leeyahay ma shaqaynayo start baan nidhi kana start baan nidhi labadaba waa shidnay kii hoose ayaa noo shidmilaa see marka ciladdaa u xalinaa ayaan ka fakaraynaa marka si ciladda aynu u xalino waxaynu tegi doonaa local disk cda waxaan tegaynaa zamkaan soo gelaynaa zamka markaan soo galno waxaan sii tegaynaa zamkaan gelaynaa kadib waxaan tegaynaa mysql waxaan tegaynaa bin waxaan tegaynaa kay ku taalla my control f dharaadi my keliya ayaan raadinayaa .ini enter baan leenahay enter ayaan leenahay ama search ayaan leenahay go okay search waka my ayuu soo saaray right click baan siinaynaa waxaan ku furaynaa waxaa la dhaha notepad maraan ku furno waa kan waxaynu bedelaynaa waxaa laga yaabaa idinka hadda waxaa idigu qoran boortiga 3306 comment baa saaraysaa calaamadaas waa comments saa u xasuusataan waxaad ku bedelaysaan godkaana meeshaad ku qoraysaan boort 811 halkana waad imanaysaan sidoo kale comment ayaa saaraysaan kana 811 ayaa ka dhigaysaan boortigaasaa shaqaynaya iminka kadibna waan safe garaynaynaa waayahay waxaan eegi doonaa inuu marka zamkii iminka shaqaynayo let us write zam here zam baan ku qoraynaa zam markaan ku qorno waan soo dhaweynaynaa marka hore ciladaas inoo saaraya casaanka start ayaan leenahay waan soo kicinaynaa labadaba marka uu soo kacay ayaan filayaa uu shaqaynayaa okay waxaan tegaynaa marka iminka local hostigii ayaan tegi doonaa casharadeeni baan eeganaa yes wakaa kuwa hore aan sameynay waa kan iminka waa shaqaynayaa keenii u horeeyey I think in lesson 1 ahaa halkan waxaan ku qorayaa lesson 2 wuu shaqaynayaa isna okay so ciladii waan iska xalinay meeshii aynu ka isticmaalaynay waxa la yidhaahdo maalinkii dhaweyto waxaynu isticmaalinaa haddaad si fiican u xasuusataan kuwan aan isticmaalaynay maanta waxaan isticmaali karnaa barta echo ay ku jirto waxaan isticmaalaynaa prince keliyaan qoraynaa kadibna waxaan qoraynaa quotation waxaan leenahay php waayahay coding okay oo programming kaa doonto dheh oo programming okay so waan soo xidhaynaa prince baan dhahaynaa marka kan magaciisu waxa weeyaan baan filayaa waa lesson 2 waa isla kii hadda aanu taagnayn kadibna waxaan leenahay refresh php programming ayaa soo baxday so meesha aan ka isticmaalana echo waxaan isticmaali karnaa php programming waan isticmaali karnaa caadi weeyaan okay waxba dhib inaguma keenayso marka waxaynu samayn doonaa waxaynu eegi doonaa maanta casharkeenu wuxuu ku saabsan yahay data types maxaa data type la dhahaa data type waxay noqonaysaa nooca xogtaadu waa noocee shaygaa samaysay ma numberba ma xuruufba ma objectiba ma nullba muxuu yahay waxaan eegi doonaa php-gu sideedaba marka la rabo shayga in memoryga lagu kaydiyo oo memoryga la geliyo waxa khasab ah oo laga doonayaa in shaygaasi uu leeyahay waxa la yidhaahdo nooc uu leeyahay nooc ayaa laga doonayaa okay nooca laga doonayana inagaan samaynaynaa mar wuxuu noqon karaa php-du ay taageertaa string xuruuf oo kale
integer number buu noqon karaa float ayuu noqon karaa oo number dhibic sita ama double ayuu noqon karaa boolean run iyo been buu noqon karaa array buu noqon karaa object null resource kuwaasoo dhan ayuu noqon karaa kuwaas ayaan marka mid usoo qaadi doonaa haddii alla idmo oo mid kasta xabad ayaan kasoo qaadi doonaa oo aan intusi doonaa marka halkan aan tegaynaa sayn usoo samaysano waxaan u baahannahay inaan applicationkeena dhex tagno meeshaan program ku samaysanaynay kadibna waan iska masaxaynaa kan waxaan samaynaynaa tusaale ahaan variable cusub oo la dhaho y ama x ama t ayaan samaysanaynaa kadibna waxaan leenahay variablekaas wuxuu la mid yahay jaamac ayuu la mid yahay waayahay haddii marka tiraahdo var dump kaas waxa wey waa functionka var dump wuxuu sheegaa $t maxay tahay variablekaasi waa noocee ayuu soo saaraa tusaalehaan variablekani ma number ba mise waa string mise waa wax kale waxaa sheegaya functionka la yidhahdo var dump ayaa sheega waan safe garaynaynaa marka waxaan tegaynaa barteeni saynu uga soo saarno bal jaamac iminka waa string waa xuruuf weeye maadaama kan string yahay luqadaha kale waa loo sheegaa ma string ba ma hebel ba luqadaha kale markii waa loo sheegaa laakiin luqadan looma sheegin waxba jaamac baa la iska qoray inay string tahay baa la tusay marka halkan aan imanaynaa waxaan soo dhaweysanaynaa meesheenan waxaan leenahay refresh wuxuu ku sheegay inay maashi ahayd aad soo gelisay string ay ka koobnayd lixdaas 1 2 3 4 5 6 ay ka koobnayd xaraf ay ka koobnayd string ay tahay ayuu inoo sheegay waayahay string marka waxa weeye waa xuruuf weeyaan waa xuruuf weeye waxaan samaynaynaa aan ku xijinaynaa waxa la yidhahda koorkeena aan nimaadno mid kalaan samaynaynaa oo isaguna ah dollar number ayaan samaynaya variable cusub variableka waxaan bixinaya 123 ayaan u bixinayaa waan safe garaynaya isna sidoo kale waxaan leeyahay var dump ayaan leeyahay intaana var dump dhahin break ayaan udhexaysiin doonaa break ayaan udhexaysiin doonaa saysan iskaga keedhegin kuwaasi kadibna waxaan leeyahay numberkii baan odhanayaa var dump okay keed raadinaynay number ayaan raadinaynaa okay waan safe garaynaynaa numberkaas marka maadaama kani ka 123 uu yahay integer ayuu soo saari doonaa integer aan soo waka aan eegno refresh garayno waka integer weeye 123 ayuu soo saaray waa integer waa number 123 ah so mid kasta wuxuu soo saarayaa waxa la dhaho data typekiisi ayuu soo saaraya mid kasta data typekiisi buu soo saaraya mid kalaan samaynaynaa isagana kanaan xidhno waxaan tegi doonaa waxa la yidhaahdo double ayaan samayn doonaa waxaan samayn doonaa doubleka ama float ayaan samayn doonaa waxaan u bixinaa magaciisa tusaale ahaan x kadibna waxaan leenahay waxaan u assign garaynaynaa waxa la yidhaahdo 1 2 3 oo mena 3 4 5 56 kadibna waxaan leenahay safe kadibna waxaan leenahay okay var dump waxaa soo saartaa x echoga aan soo qaadano because haddii kale xarfuhu way isku dhegayaan sorry way isku dhegayaan isma hoos tegi doonaan kadib waxaan leenahay var okay dump ayaan leenahay waayahay var dump ayaan leenahay waxaan leenahay noo sheeg x waad maxay tahay x noo sheeg hadda ha ka tegin dollarka hadda dollar ka tagto variablekii ayaa ka tagtay waa kan markaas waxaan leenahay isna waa float ayuu ku sheegay waa numberkaas float weeye maadaama oo ay dhibic ku jirto mid kale ayaan weydiinaynaa isagana all the numbers waan weydiinaa aan xidhno mar walba iska xidhay laawin waxaan leenahay brt baan soo qaadanaynaa waxaan samaynaynaa mid kaloo ah dollar waxaan samaynaynaa mid la yihahdo y waxaan u assign garanaynaa inay tahay kasoo qaad single codeka laftiisa waxa weeye who you are single codeku midna waa double quotation oo waa taas midna waxa waa single quote waa tan waa isku mid weeye labaduba haddii ka aad weydiisaba waa kii kale waa isku mid labadaba uu isticmaalaa var dump kadibna waxaan leenahay dollar y waayahay waan xidhaynaa marka dollar y ayaan dhahay okay markaan dollar y dhahno waan safe garaynaynaa laftiisu waxa weeye lamid weeyaan lamid weeye kadibna waxaan leenahay refresh waayahay aan refresh garayno isagu muxuu inoo noqonayaa waan eegi doonaa isna string weeye waa string 10 ka kooban xaraf waayahay kaas marka stringiga bahashani way aqbashaa labadaba dual quote iyo single quote labadaba way qaadataa caadi weeyaan waxa inoo hadhay booleanka oo run iyo been ah tusaale ahaan waxaan leenahay mid baan samaynaynaa
run oo kalaan sameynaa horta aan echoda soo gashto kadibna dollar sign baan sameynaya kadibna waxaan leeyahay haddaan doono waxaan sameynaysaa b waxaan u assign gareynayaa true b true baan u assign gareynayaa kadibna waxaan leeyahay var dump kadibna waxaan leeyahay waxaa soo qaadataa dollar sign p noo sheeg markaa maxay tahay waan safe gareynaa iyadana sidoo kale ayaan u eegi doonaa waan soo qabanaynaa marka waa kan waxaan leenahay refresh isna waa pool ama poolin oo run iyo been ayay sheegtaa ayaduna waa pool run iyo been bay sheegtaa tamam waxaa jirta intaa kusii xejin doonaa kaana waan fahanay var dump okay mid kalea jirta aan ka tegin aan filayaa tusaale ahaan valuego kale hadduu maran yahay kasoo qaad waxaan idhi dollar sign u waxaan u assign garanayaa null ayaan ka dhigayaa waayahay null ayaan ka dhigay kadibna waxaan soo qaadanayaa breaktaydii kadibna waxaan leeyahay var dump kadibna waxaan leeyahay noo sheeg dollar sign u maxay tahay mayay maran tahay mise value bay sidataa refresh baan leenahay waa null ayay soo saartay waxay soo saartay waa maran tahay so string waan aragnay integer waan aragnay float waan aragnay pool waan aragnay what else baa inoo dhiman markaas oo aynu eegnaa okay waxaan tegi doonaa array maynan arag float waan aragnay pooling waan aragnay array maynan arkin arrayga ayaan tegi doonaa marka arraygu wuu ka yara duwan yahay marka la sameynayo xoogaa wuu ka duwan yahay wuxuu u baahan yahay isagu waxa weeyaan number badan tusaale haddaan soo qaadano dollar sign baan sameynay waxaan la sameynay students arday baan sameynay students arraygu waxa weeye waa variableki waa isku mid laakiin keliya waxay ku kala duwan yihin waxa weeyaan isagu wuxuu haystaa kii hore waxa haystaa one value isagu wuxuu haystaa values multiple values ayuu haystaa waxaan sameynayaa jamac kadibna waxaan leeyahay comma waxaan sameynayaa cali okay waxaan sameynayaa muna waayahay let me create muna waayahay waxaan sameynayaa okay sorry waxaan sameynayaa okay muna waxaan sameynayaa xamdi okay intaa markaan sameyno waxaan leenahay sidoo kale waxaan soo qaadanaa break kadibna waxaan leenahay var dump kadibna waxaan soo qaadanaa dhahaynaa students maxaa la dhahaa studentsku maxay yihiin maadaama hadday number badan yihiin oo eega iminka variablekaas numbera badan buu haystaa oo loo assign gareeyey kadibna waxaan dhihi karnaa waxa la dhaho muxuu noqonayaa waan weydiinay iminka wuxuu noqonayaa weydiinaynaa hadeer there is a wrong thing dollar sign students halkaas ma jirto ayuu yidhi waa lineka 21 line 21 waa kan students baan sameynay mistake baa ku jira mistakega ku jira aan saxno waxaan ka tagnay marka haddaa arkaysaan halkan haddaa aragtaan waxaynu ka tagnay waxa le array halkaasaa laga raaciyaa array waa loo sheegaa iyada waa loo sheegaa kuwa kale qaar baan loo sheegin oo waxaa la raaciyaa square bracket iyadu way ka duwan tahay php waa very simple language way fududahay saasaa ugu soo xidhaysaan halkan way ka xidhan tahay si fiican isaga ilaaliya students markaa qortaan oo saa u qortaan waka kadibna waxaan leenahay safe ayaan leenahay kadibna waxaan tegaynaa okay halkeena koodhkii waa soo dhaweyneynaa kadibna waxaan leenahay refresh so dollar sign unexpected okay wuxuu haysto waa ina koodhka halkaa ka akhrido very important weeye koodhkeena akhrido khaladku meeshuu nagala socdo waxa weeyaan halkaas ma arkaysaan ma xidhna kaasi sorry kaas marka hore ma xidhayninba waan ka tegayey waan iska rangaraynayey halkaasaa khaladku inaga soo galay waxaan leenahay f5 waa kaa shaqeeyey waa kaas wuu soo saaray shaygani waa array wuxuu ka kooban yahay 4 shay 0 waxaa ku jira kaa marka arraygu isagu waxaan ugu tegi doonaa meeshiisa laakiin mid kasta waa kaa array string mid walba waa kaas waxaan eegi doonaa isla casharkan gudihiisa ku eegeynaa qeyb kaloo aada muhiim inoogu wada ah qeybtaas waxa weeyaan intaa waxaan kaga baxaynaa waxa la yidhaahdo sida lagu ogaan karo variableka noociisa ama magaciisa sida lagu ogaan karo waxaan tegi doonaa wax la yidhaahdo functions ay leedahay stringiga php ay leedahay php waxay leedahay qeybta marka la eego stringiga haddaad function maqashaan functionku sidiisaba waxa weeyaan waa mid adigu aad samayn kartid iyo mid hore loo qeexay waa shay ficil samaynaya oo ficilkiina maadaama lasoo celcelin lahaa kusoo yaro dhaweynaya waxaan doonaynaa iminka inaan laba wax samayno waxaan rabnaa inaan tirino xuruuf la inoo dhiibay baan rabnaa inaan tirino aan iska xidhna kan aan dhahno waxa la yidhaahdo break okay
kadibna waxaan leenahay aan qoraynaa hashada waxaa ka soo saartaa echo str len maxaa macnaheedu waa string length stringigan lengthkeeda ama dherarkeedu waa imisa weeye kadib halkan waxaan ku qoraynaa tusaale ahaan Lastic Academy intee weeye aan safe garayna markaa shaashadda waxaad ka soo saartaa baynu nidhi stringigan xuruufta hala ku qoran lengthkeeda dherarkeeda functionkan marka waa function horey loo qeexay wuxuu soo celinayaa inta xaba ay tahay ayuu soo celinayaa waxaan leenahay aan soo dhaweeyo waxaan leenahay refresh kadib waxaan leenahay waa 15 xaraf ayuu kuu sheegay in ay tahay waa 15 mid kale ayaa jirta iyaduna way badan yihiin waxaan soo qaadanaynaa waxa la yiraahdo kana soo qaadano waxaa jirta string word counts iyo string reverse labadaba way jiraan string word counts waayahay aan tagno koorkeeni mid kale aan sameynaynaa okay so waxaan leenahay break kadib waxaan leenahay echo string okay word counts erayadan tiri baan leenahay kadib waxaan leenahay learning PHP programming okay so halkan waan soo xidhaynaa markaa okay waan save garaynaynaa marka tan maxay soo celinaysaa waxay soo celin doontaa xarfahan inta ay yihiin bay soo celin doontaa intee eray ba meesha ku jira intee eray ayaa meesha ku jira 3 eray weeye sax because 3 eray way ahaayeen hadda halkan eegtaan sorry waxaa halkan ku jira learning PHP programming halkii kan waa eray kana waa eray kana waa eray okay string waxaan sameynaynaa ina xuruufta isdaba marino string waayahay reverse waxa weeyaan isdaba marinayaa waxaan qoraynaa tusaale ahaan learning okay learning marka wakaas meesha kasoo akhrinayo dib buu kasoo akhrinayaa badanaa waxaan ilaawayaa semicolonka sorry so iska ilaaliya ma fiicna laakiin inaa ilowdaan badanka waxaan qabanaa F5 refresh waka dib buu kasoo akhriyay learning marka dad break maan sameynin raali ahaada break maan sameynin break so let me break them okay into new lines mid kalena halkan waliba aan geliyo break kale so dib buu kasoo akhrinayaa sida hadda usoo dhaweeyey hadda markaan soo dhaweeyo dib buu kasoo akhrinayaa F5 waka learning dib buu ka akhrinayaa waa functions horey loo qeexay oo horey meesha ugu jiray weeyaan waxaan eegaynaa marka kuwa kale inta hore waa eegnay waxaa jira waxa la yiraahdo string post iyo string replace labadaasiba way jiraan so post waxay sameynaysaa way baaraysaa hello world ma ku dhex jirtaa world ka baar baan leenahay hello world ma ku jirtaa waayahay kaas ayaynu ka baaraynaa saasaan leenahay marka kadib waxaan leenahay okay waxaan tegaynaa koorkeena waxaan leenahay waxaan leenahay echo string post waayahay kadibna waxaan leenahay waxaad baadhaa Lastic Academy waxaad ka dhex baadhaa ka baadh halka waxaan ku qoraynaa ma ku jirtaa okay so waxaan leenahay ku soco halkan aan imanaynaa waxaan leenahay refresh garaynaa so waxaa jira waa kan wuxuu yidhi this will not throw an error ma soo saarin halkaas iska sax buu leeyahay marka ereyga aan dhammaystirno haddii noo saaro kaasoo kale khaladaadka u baahannahay sometimes aan gelino muxuu ahaa quotation baan gelinaynaa marka okay aan rangarayno wuxuu ku leeyahay waka iminka waxama soo baxayaan laakiin wuu helay laakiin academy okay aan ka dhigo academy especially halkan aan imaado academy waayahay aan tago halkan waxaan leeyahay refresh waka wuu soo helay wakaas 8 ayuu soo saaray oo 8du maxay tahay aan tirino iminka academy meesha inoogu jirto aan tirsano waxaan leenahay iminka waxa weeye 1 2 3 4 5 6 7 8 waka godka 8aad weeye marka aydu waa godka 8aad mid kale jirta oo ah string replace okay waxaan leenahay str replace okay waatan hoose replace waatan waxaan gelinaa search waa kala raadinayo ka lagu bedelayo ayaan qoranay isagana waxaan raadisaa lastic kaliya raadi replace waa kan waxaan qoraynaa academy
halkan waxaan ku qoranaa college waayahay college waa xidhaynaa markaas haddii ay fartu idigu weynaato kale halka anigoo aniga ku xidhay waa idinka arkaysaan php da ha ilaawina marna php da taa ku furan iyo taa ku xidhan waa kuwiin wax ku dhex qoranayno waa casharkeennii hore ayaan ku dhex qorayaa haddaba ogaada meesha casharkii hore ayaan ku dhex qorayaa saa darteed waxaan leenahay iminka aan halkan nimaadno waan soo tegaynaa waxaan leenahay refresh wuxuu soo saaray college waa kii markaa wax bedelayay eega college ayaan soo saarnay so aan halkan idin tuso in yar let me show it to you waxaan qoray well dolly labadaa kelmadood kelmadda well waatan kelmadda aan haysanina waxay ahayd hello world oo kale aan haysanaa so kelmadda dolly ayaan waxaan ku bedelanaa well oo kale wakaas well raadi dolly ku bedel so halkan aan kusoo celiyo examplekan waxaan haysanaa kasoo qaad lastic college waxaan haysanaa lastic college waxaan leenahay lastic raadi waxaad ku bedeshaa academy raadi waxaan leenahay academy raadi waxaa ku bedeshaa college waayahay so halkani waa ka waxa laga bedelaya lastic college waa ka dambe waxbaa laga bedelaya meesha college ku taalo meesha academy raadi asdamarna malaynaya meesha ay ku taalo baan leeyahay kan soo kobigare kan waxaan leenahay lastic college soo maaha waxaa raadisaa college raadi okay waxaad ku bedeshaa baan leeyahay academy waxaa ku bedeshaa academy meeshan sheegi waxa weeye meeshan dambe weeye kelmaddu lastic college bay haystaa meesha college raadi academyna ku bedel waa intaas keliya kadibna waxaan leenahay halkaan imaanaynaa waa soo saaraynaa marka wuxuu soo saaray refresh baan leenahay lastic academy mu soo saaray meeshuu ka saari lahaa lastic college meeshuu ka saari lahaa waa kaa lastic academy ayuu soo saaray kuwan marka waxaa isticmaalo badanka stringiga ayaa isticmaala casharkeenni maanta haddii aan laydmo saaxiibayaal halkaasaan ku rajeynaa xalqada xigta intaan ku kulmi doono waxaan rajeynaynaa asxaabta kale la sheergaraysan doontaan u sheegi doontaan in casharku si fiican aan u sharaxayno adiga ay ka heli doonaan arday jaamacadaha ayaa u sameynay badanka si tabarucaad ah oo badanaa ka cabanay in application samayn karin problem ka haysto waxaas insha allahu tacaala waa isku daynaa inaan abisna ku dhisno aad baad ugu mahadsantihiin daawashadiina dadkan la sii wadaaga ha kala bakhaylna cilmiga asalaamu calaykum